عشاء بوح سمي قرمذوبة أنبطن للنتوي إسبيرسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا من ربا دونيدا كجوكتان فيدنمو وناكسن مالينمو وناكسن حلو لبا يوقتو المويدين تاعي كنا صلوا هذا برامج كده كريبتو سومالي ميديا تكنولوجيا دا بلوك تشينكا كريبتو كارنزيغا حورانتيدا iyo jawiga lacagaha crypto currency-ga ayaan crypto Somali media idin kula wadaagna darbiga inaanu gaarno bal in Soomaalida 2025 haduu eeba nagu simo nafta aanu helno 100,000 oo rag iyo dumar ah suuqan fursadaha dhinaca wax soo saar ee tujaarta cusub ee dunida ku soo biiraysa 2025 aanu u helno safka hore ee 100 rag iyo dumar Soomaali ah ay ka mid noqdaan fadlan hadafkaas nala gaarsiin janaalka asxaabtaada ku share garay hadii teknoolojiyada aad ku cusub tahay waxaad booqan karaysaa website-ka la yiraahdo crypto.com boga casharada bani senti waxaad sign up garaynaysid male maqaalinta si loo tuurto qaybta hoose telegramka asxaabta ayaad kusoo biiri karaysaa crypto Somali currency dhinaca telegramka iyadana la isku dhaafsado aragtiyo su'aalo furan iyo coinanka fursadaha dhinaca markay noqoto tujaarta aanu doonayno 2025 maliibaanayaasha lagu liibaanay inay tirtiraan la soo saarayo diiwaankaasna kaalin ka qaado like subscribe share-ku intuba wax badan ay ka saacidi karayaan shabakada in meel fara badan ay gaarto ama sax fara badan ay ku soo xirmaan suuqu waa baraaro halka rabnaana roob nagu helay waxaan dareemi karaynaa soo kabsasho aad u fiican ka falcelinta shirqoolkii isku dayga dilka madaxweynihii hore waddanka Mareykanka Donald Trump oo dareemi karayno in lacagaha cryptocurrency-gu si weyn uga falceliyeen karahan bitcoin-ku uu si gaar ah uga falceliyay isaga oo darbiga 57 iyo 58 ku dhax rafaasan mar qura ka soo jeestay 60,000 oo dollarka Mareykanka iyo 500 iyo imika la kala tusanayo $50 iyo $1 Mareykanka afraadkii saacada soo dhaafay bitcoin waxaan dareemi karaynaa in isaga naftigiisu percentage aad u fiican soo kacay laakiin coinkii VET Jupiter Optimism iyo Sui Wif ama Covid Kuku iyo Algorand waxaan arki karaynaa Bonk Optos iyo coin kale aad u tiro badan oo mar qura cirka isku soo shareeyay fursaduhuna waa ay kala duwan yihiin balse waxaan jeclahay in aan noo dulmaro bal xuraanta suuqa iyo waxyaabaha la isla dhaxmaraya si fursadaha aan dib ugu raadino qaybta dambe dhowr coin ayaan jecelnahay 4 saac soo socotaane in aan idin kula wadaago fursadaha dhinaca markay noqoto in jeebka ay wax ku soo kordhaan iyaguna kaalin weyn ka qaadan karaya balse haddaan noo fiiriyo suuqa iyo xaaladiisa waxaan dareemi karaynaa coinankan la isku yiraahdo alternative coinska ama altcoinada number 1 waxa ka hooseeya oo idil ilaa iyo dhowr iyo 10,000 ee coin ee crypto ay jirto waxaan dareemi karaynaa marka qaabkoodu inuu darbi fiican ceshanayo 850,000 oo milyan oo dollarka Mareykanka oo bilyan aan iraahdo oo dollarka Mareykanka ayaana ku jirto waxaan dareemi karaynaa resistance ama darbi aad u fiican dhinaca marka ay noqoto lacagta guud ee alt si gaar ah ugu jirto in ay soo gaartay area-da waxaanu dareemeynaa altcoinadu inay u dagaalamayaan 950 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay maalinnimadii shalay ahayd soo gaareen dhinaca markay noqoto dhacdadii ka dhacday waddanka Mareykanka oo altcoin fara badan ay cirka isku soo shareereen darbigaas hadda aanu dareemayno waxaan arkaynaa in altcoinadu kicitaan uu u soo socdo macnaheedu tahay in darbigoodii trillion iyo 400 ay u soo dagaalamayaan sidii ay u soo gaari lahaayeen taasoo noo siinaysa fursad coin aad u tiro badan oo altcoinada inaan ka faa'iideysan karayno waqti horena aan awoodi karayno xogaha altcoinada iyo mawjadaha waaweyn ee ka soo baxaya in haddaan sii helno coinan kala duwanaana meeshaas ka jiro iyaga naftigooduna waan idinla wadaagaynaa kuwaan isleenahay altcoinadu fursadaha ayay qaybtaas iyaga naftigoodu ka bixinayaan haddaanu fiirino fursadaha dhinaca altcoinada mid kamida coinkan Cardano la yiraahdo aan dareemi karayno update aad u muhiima inuu ka soo baxay oo la yiraahdo Node V9 modelkiisan dhibic ebarka ah oo ay dad aad u fara badan update-kiisa dhinaca nidaamka dawliga ah ee Cardano blockchain-ku uu ku dhisan yahay update-ka wax ka bedelka teknoolojiyada smart contract ee Cardano ee Bluetooth la yiraahdo version-keedii koowaad wax laga bedelayo CIB 69 wuxuu ahaa mid aad u muhiim ah marka loo fiiriyo teknoolojiyada blockchain-ka Cardano uu ku dhisay qaybta smart contract iyo qaybta nidaam dawliga mustaqbal ahaaneed waxaan dareemi karaynaa in update-kan cusub ee Jank
harfogiisaan imika nodekan 9 la yiraahdo v9 ka ah ay dad aad u fara badan oo stakers ay aqbaleen nodadka dadku horda ay aqbaleen coinka Cardano isaga naftiisu fursad aad u weyn uu u samaynayo janis aad u weyn ay ka soo bixi karayaan dhinaca trade-kana 5% ilaa 65% aan yiraahdo ayuu cirka isku soo shareeray 24 saac soo dhaafay dhinaca graafkana waan ka fiirin kareena waxaan dareemi kareena 42 senti in uu difaac adag imika Cardano ka sii helayo haddii derbiyadan uu soo dhaafo isaga oo kaashanaya update ka dhinaca developers iyo koodadka dhaadheer oo ay qorayaan oo Jank Harvog uu ka mid yahay in Cardano loo filan karayo $35 senti iyo in aanu aragna bal derbiga $3 maalin uun in indhaha laga qaado fursad aad u far badan dad ay ku gaadayaan Bitcoin iyo xaalkiisa haddaan ku hormarno bal 24 saac la soo dhaafay sakana ayaa ka dhinayd in wadanka Mareykanku uu dagaal sokeeya lafaha isa u galo oo loo kala safto reer jaamac iyo reer culusow iyo reer cabdow laakiin waa qadar waxay noqota bal in madaxweynihii hore wadanka Mareykanka Donald Trump uu ka badbaadiyo malaayiintii jaclayd in qoorta laga jaro isaguna malakumowdkiisa waqti u dhinaayo yaa ku dili karaya haddii saacadaadu ay wax ka dhiman yihiin waa cidnaba maxay kaliftoodagu rasaas la raba qadaadka in laga geliyo in dhegta ay martay tintana hore qayb ka mid ah timihii biibaayay qayb ay hore u qaataan odaguna uu yiraahdo dagaal aan noo ballana gacantiisina bannaanka soo dhigtaa soo dhinac dhiig ku haysta arrintaas waxay kaliftay Bitcoin inuu cirka isku shareero isagoo oo derbiga dhinaca markay noqoto 57 cajiin ku walaaqanayo iska daba warwareegayo taagnay ila meerayso aan idinku hayna ila aad ka keenaysaan lacag baadii reer crypto iyo Wall Street oo taagan annaga lacagta waa aruursanaynaa dhinaca dunida Wall Street kana iyaga naftigoodu xarfaar ay ahaayeen warbixino fara badan ayaan idinkaga wadaa oo toddobaadkii ugu wacnay ayay ahayd annagu waxaan u haysanay in sheekadu cajiin la walaaqayay ila meerayso uu suuqu ahaa laakiin dada adeeganayay billions ayaana suuqa soo galaya laakiin كفل علينتا ترام حجة كلا يهين أو برشة الرير كريبتو إيه سوق دوني لعيها مركز نقطه يدوني ده سوق ده كلا دوقه أنت ضبط سيادة يوقف العليا ما دام أدويدو يكبد بعدي هذاك يقول وين إن عمرك أي نقطة هربوت قيبت أفكا يا رقدي عقريدو اللي سكده بعالي اللي بنكي قعدت كوهاي هدي بدي سوقاتها ورا رواية وضوء عدو فربضر أنا باشا جعل ونفط عقدي يضد عدو فربضر إسلام وتاقن أنا معاك قالوا إن عدينا ورقدي عقريد بس دي هور النتنيه ويجيقوا يقول والله ورقدها عقريد دقيقة هذا شهر وحن عرف درك بني آدم كين قدها غسكا وضا مركا ورقدها والله وضا ديتاي waxay noqotay la yiraahdo nimanku way ka badbaaday dagaal qabiil oo warqadeen waa haysan karnaa hadii geli lahayd laakiin ay noqon lahayd naalabaatan inay kugu noqoto doolarku laakiin sakanaad ku badbaaday dadka liftiin Bitcoin uu yiraahdo waxa soo kala bay maraayo waana uu ka dhabeeyo sideed dambaba adma igu arki karaa ka dhacday 6,370 doolarka Mareykanka ayuu mar qura ka soo jeestay haddana 6,050 ayaana lagu tareen kareynaya qanaad far badan oo dhinaca dunida kaftanka sida kolkan beega la yiraahdo cirku isku sii shareeray salaam isaga naftigiisu cirku isku sii shareeray kuwa kale iska amray saacad far badan way soo bixeen laakiin qaar waxa jiray dunida asxaabta qaarkoodna ay ka faa'iideysatay suuqa dhinaca ETF-ka iyo xogihiisa hadaan fiirino waxaan dareemi karaynaa in lacag far badan toddobaadkan dhinaca dunida ETF-ka gudaha wadanka Mareykanka oo qura $1 bilyan Mareykanka lacag ka badan toddobaadkan ay Bitcoin-ka soo gashay Bitcoin kuna meereys uu ku jiray oo 57 dhaxwar wareeg toddobaadkan uu ka dhaxayo taagnay eriyadan ku noqonaa laakiin raga ayaa taagnay bilyan ayaan dabada ku haynaa oo maalintiiba $2 milyan Mareykanka ayaa meesha soo galaysa marka loo fiiriyo July 2023 ayaana dhinaca markay noqoto cabsida Bitcoin-ka iyo walwalku la dareemi karayaa in 20 ay gaartay oo area aad u hooseysa ah hadii aanu fiirinane in 25 cabsida walwalka Bitcoin ku meeshaas ay tagto June 2023 maadaama ay ugu dambeysay dad aad u fara badan ay taageen baalka salku dhulka la helay laakiin weli salka dhul la helidu waa ay dhameystiran tahay in salka la joogone waa ay jirtaa laakiin
ma dhaqaaqii baa dhammaystirmay mise ma uusan dhammaystirmin ma falcelin baa mise falcelin maaha intuba suuqa ayaa noo tilmaami doona waxaan se dareemaynaa lacag aad u tiro badan in bitcoinku ay kusoo qumatay toddobaadkan isagoo areadaas dhex noqnoqonaya ongen analyska marka la fiiriyana waxaan dareemi karaynaa shirkadahan kala duwan ee dhinaca BlackRock markay noqoto dhinaca markay noqoto Fidelity iyo kuwa kale aad u fara badanba in lacago dhinaca markay noqoto dunida ETF-ka ay kusoo qubayaan toddobaadkan billion ay gaareen iyadoo suuqa adigana aadan ka dareemaynin dhinaca trade-ka iyo waxyaabahaas ayaan jeclaa markan inaanu fiirino iyo fursadaha xaalka suuqu iyo sida uu yahay yani sidaan ka heli karayno iyo coinkan islaan habal asxaabta waad la wadaagi karaysaan toddobaad ahaan haddaanu fiirino 24 saac ay ugu dambeysay gaar ahaan 4 saac garaaf ahaanta waxaan dareemi karaynaa asxaabtii wixii ka dambeeyay 12 Juulaay 2024 bitcoinka areada 57 kasoo gashay faa'iido aad u weyn inay ku fadhiyaan maadaama darbigii lixdanka uu joogo haddana weli ushu waa noo taagan tahay janalkuna ama janalka mawjada markay noqotane maalin ahaan haddii la yidhaahdo waa noo soo kabsasho aad u fiican oo noo keenaysa in bitcoinka areada dhinaca marka ay noqoto gadasho hadda uu rajadeeda qabo derbiga marka aanu kasoo tilowno areadan 61,900 oo haddii bitcoinku 24 saac soo socoto haddii nafta eeba noogu simo haddii aanu ka tilowno noo noqon karayso cagta wax ka day ilaa iyo 65,000 areadeeda oo iyadoo naftigeedu derbi kale ah tan ayaana noogu muhiimsan haddaanu fiirino dhinaca markay noqoto 4 saacadood garaaf ahaanta saacadihii ugu dambeeyay labadii maalmood ugu dambeysay asxaabtii bitcoinka soo trade gareynaysay in lacag fiican ay sameynayaan welina janiska ilaa iyo 62,500 ilaa 62,900 darbi aad u wacan ay ka haystaan haddii bitcoinku areadan uu tilaabo markay noqoto 62,300 janis aad wanaagsan ay noqonee ton waxaan dareemi karaynaa noqnoqosho inuu sameynayay lacag aruurin haddii aruurintan hadda saacad ahaanta 4 saac garaafka noo saaran uu ka tilaabane areada $7.69 ama $8.10 ana aan dareemi karayno ul dheer inay taagatay dhinaca 4 saac markaanu fiirino maadaama abdeedi aad u weyn dhinaca jainkooda uu sameynaya qaybta node version 9 ka ah oo aad u muhiimsan CIB-ga 69 ka ah hadda aan dareemi karaynaa in soo noqosho yar ay jirtay oo dhinaca trade risk asxaabtii areada 37 senti ka soo qaatay faa'iido qaadasho areada dhinaca markay noqoto 44 ay ka sameeyeen darbina uu noqonayo laakiin haddii darbina 44 iyo 43 imika aad ka qaadato ilaa iyo 46 iyo in aad kontonka midna uga baxdo majaanis ku siinayo dhinacan kale waxaan dareemi karaynaa layer 0 aruuna aad u caanayo ku jira waxaan dareemi karaynaa xilligii la soo korayay in ay tahay gadashana uu bilaabayo candleka dhinaca maalinta haddii la yiraahdo fursadaha dhinaca markay noqoto saacadana aan dareemi karayno in gadasho uu tilmaamayo oo ah coinka in aad soo raaci karayso 3 saac fooda nagu soo hayso oo iminka ka bilaabanaysa in $3.70 ku gadato haddii eeba ku qadara nasiibkuna noqon karayso ilaa iyo $4.30 ilaa $4.40 in ilaa iyo areadan $4.10 intaba areadii aad jeceshahay aad uga baxdo haddii kalene hadduu $5 ku taga kama sii wacan maadaama candleka maalintu tilmaamayo in dhaqaaq fiican uu ka jiro coinka dhinaca markay noqoto layer 0 aad ka heli karayso video kuku wef waxaan dareemi karaynaa isaga naftigiisu coinka dhinaca kaftanka $1.60 ilaa iyo $3 ilaa $2.10 areadeedaas darbigan ah $2.30 ku diidan malaceedo kaalay fiili kaana qaado oo trade wanaagsan waaye jeebka xoga ku soo kordhay algoron ka sii daray isaga naftigiisu fursada aad u fiican dhinaca maalinta hadii la yiraahdo uu bixinayo dhinaca 4 saacne waxaan dareemi karaynaa kaana cagaaran oo qurux badan inuu soo deysto taagayahay maxaad sugay maad kaalay imaadido wax daabacdid maxaa daabaca beeza daabaca jariyo 10 senti hadii jaaris keemika inkastoo uu soo qaaliyo baadane aan dareemi karaynaa ilaa 16 senti ilaa iyo 8 ilaa 20 senti darbigeeda inuu ku sii socdo maalin ahaanta marka la yiraahdana soo qabsasho uu ku jiro xilligan aad dareemi karayso haddii uu ka soo baxo in 18 darbigiisa uu yahay darbiga kaliya ee u haray EMC waxaan dareemi karaynaa jaarisyo isaga naftigiisu inuu bixinayo aad yaanu fiirno Aster iyo Near ayaa jaaris aad wanaagsan bixinayo dhinaca trade-ka soo qabsasho aad u fiican ayuu ku jira asxaabtii $4.44 senti ka soo hesha bariyo jaaniska dhinaca markay noqoto konton aan dhaho jaaniska dhinaca $5.40
ilaa iyo 30 senti ayaad soo maraysaan waxaana idin dhiman oo qura $7 darbigeedii inaad uga harto waan ijaanaysa wanaagsan oo dhinaca near trade-ka aad ka heli karayso kuna fiican hadduu kula soo daatana meel uu kaa tegaya near ma laho altcoin safka hore hogaanka ayuu hayaa waxaadna noqon karaysaa darbiga $4 iyo kontomiyada ereyada inaad joogto arka ayaan dareemi karnaa isaga naftiisu dhaqaaqaad wanaagsan dhinaca soo qabsashada inuu ku jiro fursado dhinaca markay noqoto $40 ayaadna heli karaysaa 1x kaada toddobaadka fooda lagu soo haayo isu diyaari arkana waxaad tirahdaa boorsooyinkan u soo qaato $24 ilaa iyo $40 yaa intee waayo meeshaas crypto Somali Media like subscribe share aragtida qaybta soo nogula wadaag barnaamijkeena qaybta dhinaca markay noqoto graafka iyo suuqa waxyaabahaas ayaan jeclahay inaan idin kula wadaago crypto waa hawd kuna wanaagsan in lagu fogaado boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsamay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa